السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي قالي جعل جنالكي كحرن أدبا نبين سلامها ولا سعدي من الله سبحانه قدنا سن معلومها نحاوا إيفونا برتاح أنا ندوبل إن سبحان الله إيبرا مسيتهين حالتين كورنا دوال أصحابتنا وعصب أصحابتنا اللي جوكتنا وحايد اللي أدبا وما سنتين سيدا أو من نقطين فاملي قرح بعض مالين كاستو دوال ماما سعدي وابيسين واسكيرا مشغولة يخلى أنا هيسي إيبرا مسيتهين عافماتكين وإذن باشالله أنا وقت في عن أي هاي الحمد لله ورجينا إذن كان إنه وقت إني وناكسيني هاي إيبرا maanta waxaa rabaa su'aalo badan oo meeshan diiga soo weydiinaan ka jawaabo waxaa kamid gabdhihii soo weydiinaya kareemka xaada lagu soo bixiyo horta kareemkaas waa waaye abaayo saa u raadinayay haddii aad Nairobi joogtan waxaa rajeynaa adigan inaad soo raadisid oo meelaha aad ka helaysid oo kale taas leedahay aad soo weydiisid laakiin ani meelaha aad daawa waxyaalaha kasoo gata kareemada shaambooyinka waxyaalahaas aad kasoo gato waa waxyaalo original badanaana dukaanka wax ka gato dukaan custom iyo waaye meel walba wax kama soo gato wax walba ayaga weydiiya oo aan u baahanahay because meesha aad la qabsatay oo haddana aaminsantahay in wax fiican aad ka helaysid wax laga gataa sumahan marka waa soo waaya xabiibtideyda taasna iga raali noqo waxaa igu soo xigta gabdhihii saliida i weydiinaya oo jooga Somaliland Puntland qaasatan gabdho waxay kula Soomaaliya qaasatan Puntland jooga وارجينا نمبردي أني صدرة إن شاء الله إن إذن كان هشان أباية تركي جوكت سيدا كاليتو أباية كاليتو أيضا UK يا جوغاني دهران جعل هاي وارجينا إذن كان إنا هشان وكونتاكتيغا إذن صدرة marka maanta waxaa rabaa in aan kaga faa'iideeyo saabuuntii maalin dhigta idin dhahay way fiican tahay oo nabra iyo waxaas u fiican tahay meel kasto aad joogtiin iga soo dalbadaan dhahay haddii Nairobi joogtiin Nairobi aad ka heshiin kaba si fiican haddii oo Mombasa ay maxalli jira aka kansanay waa idin ka caawin doona meelaha ka heli kartiin marka maanta waxaa rabaa asxaabay in aan kaga faa'iideeyo saabuuntii waxay tahay saabuuntii waa soo galay waatana suuqan aaday waa soo raadiyay finally waan soo helay laazim wixii oo waxa waaye Mombasa maadaama ay tahay caasimadda labaad laazim caasimadda koowaad maybe magaalooyin waxaa jiro wax aan meel keesina la aqoonaysid laakiin isma dhahin Nairobi waa ka weynaysaa because waa la keenayaa marka dukaamada shopping oo kale taa ani dukaankayga aan shopping ka ka soo helay Nairobi hadaa joogtid sida hore aan kugu sheegay wax qaali ma ahan ayda dhan ana waxa ku jira 70 shilin waa $1 adi iyo wax yar waay waa waxa $1 dhameena ku jiray laakiin maanta waxa soo galay $1 ku soo galay Saudi hada baashi waxa waaye baashi waa baxay dartiina aan suuq aada u soo raadiyay marka waa soo gaday because maadaama gabdho badan oo igu dhahan saacadii Nairobi aan joognaa mana garanayno marka maadaama Nairobi ay qaarkood joogaan aysan garanaynin waxaa ugu talagalay inay ka faa'iideystaan haddii ay soo gadan karaan Nairobi joogaan ay soo gadaan oo tilmaamo meelay ka heli karaan oo ani ka soo gaday haddii ay meel ka fog ay joogaan ee qof usoo dirsanayaan aan u dhiibi karo taasna waa mid hore idin kugu sheegay wax weyn ma ahan marka saabuuntii waa tanaa saabuuntaas waa tahay aynu tuso saabuuntu waa tanaa qolofkeeda ruuda laga sameeyay saa arkaysiin kaas fiican tusaa saasay waa tahay saabuunta waa tanaa la selecta saabuunta arkaysiin oo maleena saas waa kalarkeeda saas waaye عرف ما شاء الله قبتها وراقدة صيرتها بحجرتي وراقدة صارت بحجرته وراقدة صادي أوريجينال فيك هاي وراقدة صارت بحكرنيسا هدي صن وراقدة سكجرين فيك واي أنا هذا كل هاي لكن هذا وراقدة سكجرته وراقدة إنجليش وقريني هاي أنا عربي جنو وقريني هاي أنت صار كيسين عربي كقرن أنت أركيسين أرنو صف عنا أركيسين قيبتان عربي كقرن وقصة قيبتان إنجليش كقرن قيبتان إنجليش كقرن marka waxa ku kala garan kartiin warqadan
warqadan haddii ku jirto waa original anaa idin dhahay warqadan haddii ku jirto waa original haddaysan ku jirinna waxaa waaye fake waaye iska dhaafa markaa soo gadanaysiina qolofkeeda waa caadi waa furi kartiin ma ahan wax bac ku sii jalaysan tahay ma ahan sidaas hadda ay tahay sida hadda ay tahay yacni waaye oo wax bac iyo wax oo isleedihiin way ku sii jalaysan kuma sii jalaysan saas hadda ay tahay waaye waa furi kartiin dhexdeedana waa fiiri kartiin soo marka maxay taraysaa meesha taalo meesha taalo saabuunta 100% vegetable laga sameeyay saarkiisin meeshaas kore ku qoran tahay calaamada meeshaas ugu qoran tahay soo marka saabuunta waxay taraysaa in midda isticmaalaya wajigeygana waa arkaysiin wax fin ma idinka muuqdo waa may soo saabuuntan wajiga finan kale iyo jirka dadka oo finanka waxyaalo iska soo baxaan loogu talagalay special wajiga sensitive waaye wax kasta lagu dhaqi karo idinka waa ogtihiin dad waxaa jira haruuda ay dhibayso maybe laakiin hadda ku dhibayso waxaa waaye waxyaalo kale iska bedeli kartaa oo ka baabaayinayo nabraha haddaysan ku dhibayna waa arrin fiican laakiin mostly dadku way dhibtaa xasaasiyadii waxaas ku kicisaa soo marka waxaa rajeynaa insha allah inaad ka faa'iidaysatiin familigan waxaa wadaagi doontiin saabuuntan haddaadan hore u arkin kaa caawi doonto in maxaa la dhihi jiray wajigaada finan dambe aysan kasoo bixi doonin so marka isli haddaad joogtidna waa rajeynaa inaad haddii aad soo raadsid screenshot ka qaado saanaan kuusoo dhahayaa screenshot ka qaado kadibna soo raadi laga yaabo inaad meel kasta ku aragtid laakiin muhiim ma ahan saabuunta meel kasta haddaad ku aragtid inay original tahay waa kuu sheega haddii ay waraaqadaas ku jirto original waaye haddaysan ku jirinna waxaa waaye meesha wax lagu hayaaba jirma soo maahan waxaa rabaa gabdhihii kaleeto isoo weydiina ayagan inaa uga jawaabo wax jirka kobciyo oo maxaa dhihi jiray oo xididada iyo waxaas qariyo maalin hore waa soo geliyey saa u soo geliyay haddaa u isticmaashiin fooshuwa waxaan baa maxaa dhihi jiray inaad ka faa'iidi doontiin waqti walbana maxaa dhihi jiray aad isticmaashiin wiilka 2 mar ama 3 mar haddaa isticmaashiin in ka badan haddii oo maxaa dhihi jiray oo jiisko kaleeta aad u fiican yahay wiilka 2 mar 3 mar asiga waa isticmaali kartiin creamka aan soo geliyay ee la isku dardaraayo wajiga oo maxaa dhihi jirka qaarka dambe la marsanayo iyo gacmaha la marsanayna asigana sidii saxda haddaa u isticmaashiin dabcan waa ka warkeeni doontiin haddii uu ku dhibaayo maahano gymka kaleeta waa la isticmaalaa oo bodyga lagu dhistaa waa aadin kartiin oo jirkaaga hadduu caatay yahay waa ku cariirin kartaa soo wax dhibka keenaya caatada waaye ee wax dhib ma keeno kareen wax dhib ma keeno jirkaaga hadduusan hilib lahayn oo kareen whiten aa isticmaashid uu ka yacni hilibkii inta yartaa jirkaaga uu lahaa wuu dhammaanayaa saabada ognahana daawada oo yacni whitenka leh dhan jirka way qabtaa lugaha dhihin gacmaha dhihin way kaa dhammaynaysaa soo marka waxaa rajeynaa insha allah mid kaleeto biyaha cadka badsada gabdhaha musli la hadlaaya gabdhaha la hadlaaya wiilasha maybe ma isticmaalaan gabdhaha camal ma ahan gabdhaha waxaa idin sheegaa biyaha cadka zaid u caba waxaa idin soo haray hurdada habeenkii aad dhafraysiin waaye haliska dhaaf haddaa rabto wajiga inuu kuu cayilo haddaa rabto jirkaaga inuu kuu qurux badnaado haddaa u baahan tahay waxaas dhan waxaa keenaya jirkaaga inuu nasto waaye jirkaaga hadduu nasto soo waxaa hubaa haddii oo jirkiin uu nasto wax badana isbedelaayo sababta isku bedelaayana waxay tahay jirkaaga uu nasanaya waqti saxa seexanaysa habeenkii 7 saac 8 saac seexatay maalintii subaxii maan quraacanin oo waxaa soo kacday subax horaa soo kacday subax duhurkii camalaa soo kacday waqtigaas quraac wax ma ku tarays aniga wallahi waxaa la cayinaa jira wajigayga موجي هاد بالنسبة لي والله وحالي عيننا نجرو وجهي قصقص لأهاجري وحكا ما قراع دواي حبينك وقت في عنا سهلة محل يجري صبحنا وحاسوك على ساعة 6 ساعة ساعة قراع دي بحيك أنا إذن الحين هل ساعة انتا سوق because ضل شقة على سماحا سو انتا كريم قراع دا ممكن يعنان أنا قراع دا أسكسح جري وقراعنا واسح جيرك يا almost قراع دي الوقتين وانا سبدان اسبدان سماحا soo marka maadaama oo mar guriga boorina ku dareemay waxa isla alsi waa qabowba jiri karo waxa isla leedahay alsiidan xaqeen iska jiifo samahan mama hudadu ku macaanay anina dadku waxa ahay maalinto dhan aniga bisa guriga jooga soo waqtiga ay u dheeraanayo isla boorina dareema
ma jecelina banaanka inaan aado soo marmar waa laga yaabaa inaan dabaqa hoos u dadago meelaha soo socdo ani gabadheedii yartaa iska soo socsocono ama maxaa la dhihi jiray aan abaaya xaafadeed iska aado oo waqti kale halkaas kusoo dhammeeno eedan ahaan maxaa la dhihi jiray waa iska jiiftaa soo markaa iska jiifto oo 4 saac 5 saac camal soo kaca waqtigii aan hurdaayabo soo kaco waxaa waaye intaa guriga mashquulsanahay duhurka cunugteedii yartaa seexinaayo ani aan maxaa la dhihi jiray duhurda dukanaayo danahayga qabsana videoga adoona oo masti waqtiga ku dhamaadabo saakana quraacdeedu waa cunay waa seexday markaa soo kacay 4 saac 5 saac soo kacay danahayga qabsaday doorka saacan camal markaa gaar videogayga adoobtay soo waxaa waqtigayga waa isku dhamaystirtay soo maahan laakiin haddaad adag ka warhabinka oo dhanaa dhafaa والله habar 9 jir oo kaan inta gooman ka soo baxaan inta ka gud misaan oo kaan adran simple marka habeenkii dhafarka iska dhaafa maalintii qofka la hadlaysiin maalintii la hadla hadaa kale waqti bedelantiin fiidka ka hor lahaa ilaa 3 saac 4 saac soo qad enough waa iska saax kadib laakiin 8 saac 9 saac 10 saac habeenimo soo jeeda ama habeenka dhan soo jeeda subaxii saxana inoo ku horta salaadii ka tagtay salaad subaxeedka laba waxa ku soo hartay jirkaaga caafimaadka habeenkii hurdada caafimaad waa ka tagtay saddex maxaa la dhihi jiray cunto maadan jirkaaga week hada saas ku joogtay daciif aan noqonaysaa soo markii inuu cudur ku dhaco ama jirkaaga difaac la'aan uu noqdo way u fududahay soo markasta waxaa idinkaga digayaa inaad iska dhaaftiin dhafarka haddaa rabto jirkaaga inuu ku quruxsanaado dhafar haddii oo maxaa la dhihi jiray hadduu jirkaaga aad rabtid haddii aad rabtid jirkaaga inuu ku qurxanaado habeenka seexo ya laakiin kareen aan marsatid oo wajir wacyiinayo ma fiicno kareen aan marsatid oo jir lagu wacyiinayo ma fiicno waxaas kansar laga qaadaa at same time jirkaaga waxaa waaye daawo marisa jirkii waa ku wacyiile hadhow daawada markay kaa baxdo naturalkaaga ahayd kuma soo laabanayo ya naturalkii oo waxaan ka wadaa jirkaaga si uu qurux badnaanayo waa halaabaya soo mar walba waxaan kaga digayaa jirkiina inta rabtiin inuu qurux badnaado please dhafarka iska dhaafa videogan waxaa rabaa inaan soo gabagabeeyo saabuuntii waa tana screenshot halaga qaato insha allah meel kasta aad ka helaysiin waa soo iibsan kartiin haddii aad wadanka ka maqantaan insha allah waa kaa caawin doonaa videogeena maanta laas u geeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu